siinayo riyaha wasanayo sababtoo ah annagu arigaynu yuusan naga wasin wixii kale wasaa wasin looday ariga nooga fogaada looday ariga wuxuu wasi karayaa waso laakiinse gabadhu waa ka dhimatay waxa leeyahay daayro halkan waxa si raacinaya ereyga raago dumarkii hataa dayacdan dulqaadkii hataa daluun ku ridaan hataa daacadnimo kasii durugtaan hadday diilalyada ilmada gabadha malyuun igu sheergareeya hadda hala igu sheergareey right now malyuun dad bay ka dhalatay kitaab baa laga marinayaa baa kuri in xitaa urkiisa ninka meel ka uraayo uusan istaagin idin kale nin inaag lama dhex galo iyo nin iyo col ma aha iyo waxaas ku jirtaan iyo walaasha waxaas dhan warkaas dhan koroga baxa malyuun iyo ninkaas xaaraan baa kuri meeshuu ka taabto iska jaraysaa gaf bay siinaysaa warku waa cadiya Allah maxaa la rabtaa waa ku salaamayaa daahiro adiga daawadayaasha aad baan idin salaamayaa ay maqlayso Soomaa ها ku maqlaya igu sheergareey malyuun ku sheergareey halka timaad right now marka hore anoo ku hadlaya afka daarood iyo wax garadka daarood waxaan magteeda bixinanaa waa gabadha malyuun Roble waxa helay gumba helay ana qoona xariga ragga iyo dabeecadaha ragga iyo aabanimada xitaa aan garanayn baa helaynayo runta markaa isu sheegnayo gabdho daarooda hawiye way qabaan caawaday oo nin walba yiraahdo naagtiisa iyo ilmahayga ka sheekeynaya waa akhir zaman number 1 horta taan isla faasiyahay qofkan oo muudi galanaad taa waa in la isla fahmaa marka hore neeyo Soomaaliduna waxyaalo run ah baa indhaha laga qariyaa daahiro ashaamina mid ma igish ninkani hadduu xishoonayo wiilka yar uu dhalay inuu ka xishooday ahayd second hadduu xishoonayo gabadhii la yirlibaas ula kumneeyo labada qof isqaba dhar bay isu yihiin adeer gacalineeyo caaw labadii qof oo dharka isu ahaa hadduu ka sheekeeyo inaad naag dhalay naasi waa weyn weeyneeyo runta marka la isu sheegnayo daarood iyo Soomaali waxaas maaneeyo waraanaaniyo nin daarood ah oo dhalad aniyo caaw ana waxa leenahay waxaasi hooyadii buu ka siilooyaa daaroodna ma ahaniyo wala daarood buusan sheegan karin Soomaali soo celi walaalo soo celi ay soo noqon wala Soomaali buusan sheegan karin dhaqanka ragga Soomaaliyeed buu xitaa daaqada kala baxayo inta marka laga yimaado ilaa yaro daahiro waxa arkay ciyaal dhahay madaxweynaha daarood barayo oo gabigooduba markay adiga xitaa ku arkaan ooyeenayo ciyaalkaas waxa rabaa inaa mid ka dhaho ciyaalka ma jeedeenka neew daaroodku uu shiray madaxweynuhu doortaana madaxweynaha daarooda daahir iyo ama Soomaalida kale nin u teey karayo oo dhihi karaya inaa yaro hadaa khaldanahay xaal qaado hadii laga khaldan yahay wardirada naga khaldan tahay waxa leenahay xaq nasiya halka dhiga waa loo baahan inaa yaro soo ooyi oo inaa yaro bah ooyin ah ilma lagu doortay ilma lagu oohin lagu doortay daahiro war cusub baan ku hayaa halkaas suldaanku sheegay madaxweynihii daarood baa ku jira qadkii hadda meesto kan kale inaa yaro ereygan maanta oo dhan daahiro lagu soo celiyo la leeyahay malyuun way ku noqonaysaa iyo waxaan hadalka jiracsan warniyow anoo libax sool ah oo dhubaanta daarooda war malyuun xitaa kuma noqonayso niyow daanyaray mar heshay buu ahaa dameeray maalmo raratay buu ahaa xitaa gabadh dambe oo Soomaaliyeed lama siinayo niyow in adeertay baana siinayn mid kalaana siinayn inaad lama siinayo riyaha wasanayo sababtoo ah annagu arigaynu yuusan naga wasin wixii kale wasaa wasin looday ariga nooga fogaada looday ariga wuxuu wasi karayaa waso laakiinse gabadhu waa ka dhimatay waxa leeyahay daayro halkan waxa si raacinaya ereyga waxa tir gabdhaha irir Soomaali ana nin fiican ku daray kuwa daaroodna waan u haynaa iyagana abaabulana bas inuu gabdhihiina nidaamsada gabadhu waa caar gabadhu anu xajalaay ninka hadii gabadha xaqiisa laga soo maro gabadhu naceebayso waa waxun way raaxaysanayaan adigu waliba kama hadlay gabdhiyo dhan wax dhan ma aha laakiin gabdhaha caanka ah ama dir ama hawiye nin fiican ay ku diirsadaan oo qurux badan ayaan gabadh u buudiraya boqortooy gaari iyo guri iyo raaxo inay shaqayso u baahna tartiibkooda hadda caan tahay social media ku jirto inaga soo xir ana ku habeynay iga dhaaf ceebta ma rabo iyo dhiiqo waa maasanta marka soo ay soo dhow daahiro warkii u dambeeyay baan ku hayaa hayi
ninkan mukhtaar horta meel baan uga degannahay labadeeda guri waa isku muuqdaan waayo odayaashii mareexaan noocan oo kale ka hadlayno waad ku fiican tahay daahir adiga daahir ahaan inaad had iyo jeer waxyaabahan oo kale ka hadasho laakiin adigana hal qodob baan kaa codsan lahaayo waxaan kaa codsan lahaa hablaha Soomaaliyeed kulli ciday doonaan ha noqdaan meeshay doonaan ha ka soo jeedaan qabiilkay doonaan ha noqdaan waa in ay adiga mid ku noqdaan waa in aad adigu laftarkaagu haddii aad xitaa qalad ka tirsato daahirow oo ay kugu talaan anigu mid ima ahaniyo anigu gabdhaha dariya hawiyaan matala kuwaas aniga gabdhaha Soomaali kadib u gudbaya nima xaafadiisa hagaajisan xaafada kale kama sheekay karaan antahay waa saxanta oo nima xaafadiisa hagaajisan gabdhihiisii wixii ay ka dambeeyay oo nidaamsan anigu hadda ismadii maanta gabar hawiya iyo gabar dira ayaa ka daba taqtaqle oo ku qabsanaysa ismadii waan aaminsan markaan gabdhayga hagaajisto oo mustaqbalkooda iyo guurkooda iyo shakhsiyadooda in la taaban saa loo taaban aan ka shaqayno maxaa ku dhacay wuxuu hiidka daahir baa hiidka ay gaarsiiyey nin hiidka gaadhay baa lagu yiri meeshan ma yimaado TikTok waayo markaani oo ceeb baa meesha horta odayga ka raacday waxa la yiri gabadha kontonkeedana waynu dhiibaynaa gabadhina waynu ku celinaynaa waayo hawiyow gar islaam baa loo yahay talada aynu dhamayno odayaasha caawa way fadhiyaan berrito hore waxa ka soo baxa ayaynu sugaynaa insha Allah waa liilo ka qaad horta mid naga sugnin anagu haye ninka yiri ayeeday iyo naagta qabay cunuga dhashay ayeeday jir macad oo futeeda ayeeday fiicneed oo cajarada ayeeday fiicneed laga yiri ayeeday soo waxay inuu gabadha hawiya iyo guri gabar hawiya ku soo laabto horta yaa naga sugnin si fiican ninkii ilmihii uu dhalay caayay ee yiri gabadha hal sana qaba 3 biloodna ma taqaanaa 3 bilood kala tan ma taqaanaa macsi waa isku haysanay bal fiiri hal sana qaba wuri hal sana gabadha markuu qabo 9 bilood oo uur bay leedahay Soomaa fiilna umar weey waa 10 bilood maxaa soo haray labo aawa 3 shay cunugu wacalm Soomaa cunugiga wacala Soomaa uu sheegay waxaas oo dhan daahiro waxaas oo dhan waxa keenay buri hiidka ay gaadhay nin fudud baan ahay hiidka gaartay futada laga faray futada wax naga galan male أنا واحد يبغى أنا سؤال إنك واحد هو دين فيري هذا يسوي مالن هوية إدارة مرة بقولي هوية إن الدلم هوية أو نكلاس قعنت هنا قعدت هوية جبر هوية يقولي هوية جبر إلى السماء مثلا مرة بس كسر الله ما أنا عاو هذا شو عبد يسوي كتاب كل عرض هذه جبر المليون بريال الدنيا وحكم لو حكمه لقما يجاوب ولا أسأل كمون تدي بالي برا قبل كان آمس دورتن محمد شافعي وبير آمس ونجد واحد معنا لك ما هذا وسيلة دار قبل مليون يقول شرقرية حد هلا يقول شرقرية مليون dad bay ka dhalatay kitaab baa laga marinayaa baa kuri in xitaa urkiisa ninka meel ku uraayo uusan istaagin idin kale nin inaag lama dhex gala iyo nin iyo col ma aha iyo waxaas ku jirta